السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان نقل سعطان وورباهنتي تشيس ميديا تاريخ الميلادي وشان يلا باتنك بيشا أغسط لبدا كونيا شان يلا باتنك وضبدا برنامج كان يكون سوق قادم دون حق الصومالي دا عالم كينتي سكربا وحكم إذا تشيمس إسوان مسؤول كقرامة مدوبة كالصعدة السياسة الصومالية أنا قاعدتي سكون معمولة ومان تلاك كل ما يلفت جرال يا أرمها وكلا كل ما يصيدوا كلا حس qoraalu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxay u dhignayd sidan oo maanta waxaynu u sii dhawaanaynaa dimuqraadiyaddii iyo doorashadii saxda ahayd ee qof iyo codka ahayd waayahay waa arrimaha shacabka looga sheekay jiray bal dawladda Soomaaliya dhinacan iyo China wafti u dirtay xilli ay shir wada leeyihiin Vladimir Putin iyo madaxweynaha China maalinta salaasada waayahay arrimaha laga shirayaa waxay khuseeyaan arrimaha Afrika iyo bariga dhexe والقضبة أيه قضبة كلام برنامج كم ويسكتوا تاجي دونا سودو بانكولا هاي شهر جراء مقال كان لايك صار سيدو كلام وحين كنا السنة مساجد كان ونيلو سوق بيع عدي وحوج يستنا إلى خير هالسيون انفورميشن كيس يلا بريدي سنة كانت كاركتون. طيب جرا إلهي وحنا نقول دعاء لنا وصاع ويا مساجد كان وحنا نقول دعاء لنا إلهي وحصل وصيو إلهي تشنّا لو نقول بشارة يقف كي مساجد بناية إلهي وحقول بشارة يروح تشنّا بقولي ودي صيو مركا يعني ما تعاونوا على البر وياي صاعوية ولا المساجد كاه وحي وحيستو إلى هيدرتي وصاعوية هوايان قف يقول إنما الأعمال بالنيات قف يقول هذا مساجد كاه وحيسي كل بيبه بعد من بعد بو كونه هوايان ووجتاي مساجد كقرية هاي كاسو كقرية هاي أو حكاك صباحية يعني مساجد كي بدوين أما مستشامعي بدوين بحكاك صباحية markaad lacagta ku dirayso sidaas aad ku ogaanaysaa inay ku dhacayso masaajidka waayahay khayr ilaahay siiyo wixii masaajidka caawiyo wixii kalena sheer gareeyay baan u leenahay oo dadka gaarsiiya aynu ku horeynay dhinacan iyo wadanka China waxa jira shir ay dawladaha waaweyn Afrika ka tashanaya isugu imanayaan oo ay ka mid yihiin Turkiga Ruushka iyo China iyo kuwa kale oo xulufooyinkooda raacsan bal haddaba Soomaaliya wafti bay halkan ka dirtay waftidaasi maxay u dooneen horta waxa weeye waftidaasi waa wafti maanta burburka Soomaaliya u maqan laakiin Soomaaliya wax allaale iyo waxay ugu maqantay ma jirto waxa loo soo dhiibi doonaa wixii ay Soomaaliya ku burburin lahayd iyo wixii ay Soomaaliland ku burburin lahayd labadaaba oo ay ugu weyn tahay in shahada ugu horeysa ee loo dhaqaaqaya dhinaca Soomaaliland tahay iyo siyaasadii hore ee la adeegsanayay inay waxba ka socon waayeen hadda mid cusub la doonayo in la adeegsado si kastaba ha ahaatee bal taa waxaynu ka warrami doonaa waftiga iyo marka uu soo noqdo Xasan Sheikh Maxamuud oo si farxad leh u soo qoray maanta waxaynu ku dhawaanaynaa dimuqraadiyaddii iyo doorashadii cod iyo qofka ahayd ayaa isna maanta qoraal noocaas soo dhigay barihiisa bulshada xilli uu James Iswaanna u diray left grade haddaba arrimaha ay left grade iyo ka wada shirayaan James Iswaan maxaa ugu tun weyn waxa weeye doorashada iyo maamul wanaag in la sameeyo abwaabaan arkayba halka ka dhadhaminay maamul wanaagaasi waxaana la doonayaa shirkii madasha wada tashiga in uu maslaxaado sameeyo oo isdhexgal sameeyo oo maanta cid loo dirayana waa Saciid Cabdilaahi Deni iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe shalay isagu si adag u hadlay isagoo xabashina dabada dhinac isagoo xabashina dabada gelinaya si adag u hadlay isagoo kursiga uu ku fadhiyay xataa lacag ku dalbaday iyadoo ay tiisi noqotay Xasan Sheikh Maxamuud ninka kaliya maanta wadnaha cadiyay uu yahay Axmed Madoobe haddana waxa weeye arrimaha lafti grade laga shirayo waxa ugu weyn in uu la hadlo maamul goboleedada hadda ka walaacsan xilliga doorashadani soo socoto doorashadan xilligan iminka inugu soo dhow la doonaya in la qabto haddana maamul goboleedada intii ugu waaweyneed walaaca weyn ka muujiyeen James Iswaan wax ma ka qaban karaaba haddaba taal James Iswaan wax uu ka qaban karaa balse laakiin haddeer waxaad moodaa dawladda Soomaaliya ee uu chapter 7ka ku maamulayay tiindada uga tirinayay inaabay gacantiisa ka sii socoto oo reer bari u gacan gashay sababtu tahay maanta cidda maanta adeegsanaysa Xasan Sheikh Maxamuud waxa weeye Turki iyo Ruush iyo China iyo Masar iyo Qatar iyo hadii laga tagi waayo kuwa kalaba waxaana jirta maanta in laga shirayo arrimo waxyeello weyn ku ah Somaliland arrimo Soomaalida inta kale ee ku hoos nool ee moodaysa inay dawlad leedahayna burbur ku ah
James Iswan haddaba wax allaale wuxuu ka qaban karaa ma jirto lafti gareed ama hala shiro ama maxaa sheegay koonfur galbeed ka soo laabto Xasan Sheekh Maxamuud hala shiro tani faraha ka baxdo ciidii lahayd maba maamushaba wafdida China ka soo socotaana maanta hubiye sanadii dhaqaale ayaa la cabiraya wixii inta lagu burburin kari lahaa ugu horeyna talaabada u horeysa ee la soo qaadaya waa Soomaaliland xageeda loo soo qaadayo taasoo lagu matalayo in laba dhinac laga galo oo laba gobol oo midna markii horeba la dhex joogay midna hadeer inta isku dayeen ay ka fashilatay siyaasaddaas laga soo galo iyadoo oo dhinaca Djibouti iyo Eritrea laftigooda adeegsi weyn ka imanayo waxa jirta maanta dawladaha quwadaha leh maxay qaryada yar inta leh ugu qarash gareynayaan waxa soo dhan waxaasi waxa weeye maanta halka aynu joogno ama ku noolahay ma ilaahay nagu beeray waa meesha maanta waxa soo kharash lagu bixinayo in aanay weligeed caadi noqon waxa la doonayaa dadkan koox walba in gaar loo maamusho cid kaliya ka fikirtana waa reer Soomaaliland ee doontay in ay maamul iyo nidaam iyo calan isku maamusho oo dawlad ahaato Soomaaliya maanta Somaliland wax loogu baaqaa ma yaalinba sababtu tahay kuwii calanka Soomaaliya sitay bal orada miis isugu keen Xasan Sheekh Maxamuud waxa tiraaha aynu ka heshiino arrimaha doorashada taasi markay dhacdo Somaliland wala hadli karaa wada hadalladina dib loo furi karaa laakiin maanta anigoo aqoonsiga gacanta ay ugu jiro taasina aanay maanta wax allaale iyo waxa iyadu haysato aanay jirin anigana aanay wax la rabin wax maanta shacabka halka jooga ay si eegtaan meesha ma yaalle fadhiga ka kacde fadhiga ka kaca sida Axmed Madoobe isaga xoreeyay sida reer Puntland ay gacanta ugu maamulanayaan masiirkooda isugu maamula ninka Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa maanta wax ka sugayaan anaaba la yaababa anaaba shaaha taro wuxuu moodayay halka nolol u sii taalo arrinkaasi wuxuu ka dhigan yahay nin dambas kulaalaya waxa jirta haddaba waxyaabaha maanta anigu aan nolosha khaaska ah aan ku noolahay in aan talaabo kasto oo Soomaaliya xagga loo sii qaada aanay ku noolay inay aniga Somaliland ahaan ay magageliyo noogu yimaadaan in Somaliland ahaan ay shaqaalaha iyo cidii nabadgelyo rabta iyo kii doonaya in uu deganaansho iyo nolol wanaagsan helo soo guuro oo halkan yimaado way haddaba waxa weeye ninka halka doonaya inuu dawlad ka sugo wadankaaga xore annaga sida dawladda loo noqday idin barayna ninka Xasan Sheekh Maxamuud maanta isla siyaasadda ku taageersan tahay waxba kuma taageersan maanta waxa jirta wasiirka gaashaandhigu inuu habeenkii walba 7 nin oo mucaarada garaacayo u hanjabay barnaamijkan halkaas ay ku soo gabagabeynaya tan iyo kulanti daba waxaan leeyahay maca salaama